moogtahay in marka aysan jirin teknolojiyadda waddanka gudihiisa nolosha dadka ku nool waddankaas waxay noqotay mid aad u adag. meelo badan oo ka mid ah Afrika dadku weli gacantooda ayay ku qodanayaan ceelal aad u dhaadheer si ay u helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan. markay ceelka qodayaan waxay si taxadir leh u qodayaan ilaa ay ka gaadhaan meel ay biyo ku jiraan. kadibna markay gaadhaan meel qoto dheer waxay gidaarka ceelka ku xoojinayaan sibidh si uusan u dumin amba u jabin. waxayna taas ku sameeyaan iyagoo adeegsanaya qalab qaabeeya gidaarka oo loo yaqaano mold. tani waxay ka dhigaysaa gidaarka ceelka mid adag oo biyaha iska xajin kara. biyahana waxaa laga helaa meel aad u hooseysa taasoo xitaa qaadata mararka qaarkood maalmo. marka ugu dambeysa ee biyaha la helo looma isticmaalayo motor amba qalab casri ah in lagu soo saaro waxay biyaha kor ugu soo jiidayaan oo ay u adeegsanayaan xadhig iyo faras la isku xidhay. dadaalkaas oo dhan laga bilaabo qodista ceelka, buuxinta sibidhka ilaa iyo biyaha laga soo saarayo waxaa loo sameynayaa hal ujeedo oo keliya, waana in dadkaasi ay u helaan nolol oo ay u noolaadaan. haddaba daawade adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, markay timaado qodista ceelka iyo ma fiican in la adeegsado ma sidii hore mise sidan casriga ah? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube iyo facebook profilka saaranna aad subscribe dhahdo.